waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena xogta dahsoon waana 15kii bisha Juulaay 2022 waxaana aynu dib isugu soo noqonnay kadib markii aynu muddo 3 bilood kala maqnayn barnaamijkeena kooban waxaynu ku soo qaadanaynaa socdaalka madaxweynaha Mareykanka ee bariga dhexe gaar ahaan lugtiisii labaad oo uu ku tagay dalka Sacuudiga ku soo dhawaada barnaamijka madaxweyne Joe Biden madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa fiidnimadii caawa waxa uu gaaray magaalada Jeddah ee boqortooyada Sacuudiga waxaana halkaa ku soo dhaweeyay amiirka magaalada Maka iyadoo aanay u dhaqaaqin soo dhaweyntiisa boqorka Sacuudiga boqor Salmaan iyo inanka dhaxal sugaha oo ah Amiir Maxamed bin Salmaan toona waana talaabada muujinaysa inaanay boqortooyada Sacuudigu u jaxanjaxaynin qorshaha uu wato madaxweyne Biden iyo in aanu xilligani ahayn kii 70meeyadii ilaa 80meeyadii ee Mareykanku uu galwadeenka ka ahaa bariga dhexe madaxweyne Biden qasriga madaxtooyada magaalada Jeddah markii uu gaaray madaxweynaha Mareykanku waxa halkaa ku qaabilay amiirka Amiir Maxamed bin Salmaan oo ah amiirka dhaxaltooyada boqortooyada Sacuudiga inta badanna amiirka magaalada Maka waxa uu magaalada Jeddah ku qaabili jiray madax kala duwan oo dalalka islaamka ka socota laakiin madaxdaasi inta badan waxay ahaayeen kuwo safarkooda koobaad uu yahay inay gutaan xajka amaba cimrada horese uma dhicin madaxweyne dalka Mareykanka ah ay qaabilaan amiiro hoose oo weliba aan kuwii caasimadda joogay ahayn waxaase calaamada ay u tahay hawsha weyn ee madaxweyne Biden u taalla gudaha Sacuudiga halkaasoo uusan ku keliyeysan doonin madaxda Sacuudiga laakiin ay iman doonaan maalinta berrito madax kala duwan oo ka kala socota wadamada Masar, Ciraaq, Bahrayn iyo wadamo kale iyadoo madaxweynayaasha dalalka iyo ra'iisul wasaarayaashoodu ay goobjoog ka noqon doonaan kulanka caamka ah ee madaxweynaha Mareykanka uu la yeelan doono madaxda gobolka waxaana la sheegay in 3 qorshe oo waaweyn oo madaxweynaha Mareykanka uu yimi Sacuudiga iyadoo ta ugu horeysa ay tahay dhanka shidaalka sidii kor ay ugu qaadi lahaayeen boqortooyada Sacuudiga wax soo saarkooda shidaalka si qiimaha shidaalku uu jabo maadaama qiimaha sare ee shidaalku uu dhibaato weyn u geystay dhaqaalihii dalka Mareykanka hoosna u dhigay sumcaddii madaxweynaha Joe Biden hore Sacuudigu waxay uga diideen in shidaalka kor loo qaado madaxdii kala duwaneyd ee uu Joe Biden u soo diray Sacuudiga sida madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron hogaamiyaha Jarmalka iyo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska madaxda oo guud ahaantood faramaran kala noqday magaalada Riyaad kadib markii boqortooyada Sacuudigu ay ku adkaysatay inaanay ka baxaynin qorshayaashii ay ku heshiiyeen wadamada shidaalka soo saaray ee ku midaysan ururka OPEC qorshaha labaad ee Joe Biden Sacuudiga u yimi isaguna yeedhay wadamada gobolku waa sidii loo sii wadi lahaa caadiyeynta xidhiidhka Israa'iil waxooda qabsina lala yeelan lahaa iyadoo Sacuudigu ay hore u diidanayeen heshiiska caadiyeynta Israa'iil shuruudna kaga dhigeen in marka hore la helo dowlad Falastiin laakiin subaxnimadii saaka 15kii bisha 2022 ka hor intii aanu Biden iman Sacuudiga boqortooyada Sacuudigu hay'adeeda dhanka duulimaadka u qaabilsan waxay ku dhawaaqday in boqortooyada Sacuudigu ay haatan kadib hawadeeda u fasaxday dhammaan diyaaradaha dalalka caalamka ee rayidka qorshaha oo ay markaas soo galayaan diyaaradaha Israa'iil ee rayidka dowladda Ciraaq oo iyana kulanka berri ka soo qaybgalaysa ayaa baarlamaankeedu waxay hore u ansixiyeen in aan marnaba la aqbali doonin in la caadiyeeyo heshiiska Israa'iil tan iyo inta xaaladda gobolka bariga dhexe ay caynkan tahay qorshaha saddexaad ee madaxweyne Biden u socdo waxaa lagu tilmaamay inay tahay sidii wadamada Carabtu ay u sameyn lahaayeen gaashaanbuurta Carabta ee NATO taasoo ay iskaashi buuxa la yeelanayaan Israa'iil lagagana hortagi doono jamhuuriyadda Iiraan waana qorshayaasha ay ku sii dhawaaqeen ama sii faalleeyeen inta badan dadka ka faallooda siyaasadda caalamiga ee gobolka bariga dhexe laakiin kulamada berrito ee Biden la yeelan doono madaxda dalalka Carabta ee kulanka Jeddah tegi doonta ayaa waxa aynu kaga bogan doonaa oo ku ogaan doonaa natiijada kama dambaysta ee socdaalkiisa waxaana ku adag boqortooyada Sacuudigu inay aqbasho qorshaha dhanka shidaalka ee ay u socdo Joe Biden maadaama ay hore uga diideen hogaamiyaashii wadamada waaweyn ee reer Yurub ee uu Joe Biden laftiisa soo diray
waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena xogta dahsoon waana 15kii bisha Juulaay 2022 waxaana aynu dib isugu soo noqonnay kadib markii aynu muddo 3 bilood kala maqnayn barnaamijkeena kooban waxaynu ku soo qaadanaynaa socdaalka madaxweynaha Mareykanka ee bariga dhexe gaar ahaan lugtiisii labaad oo uu ku tagay dalka Sacuudiga ku soo dhawaada barnaamijka madaxweyne Joe Biden madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa fiidnimadii caawa waxa uu gaaray magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga waxaana halkaa ku soo dhaweeyay amiirka magaalada Maka iyadoo aanay u dhaqaaqin soo dhaweyntiisa boqorka Sacuudiga boqor Salmaan iyo inanka dhaxal sugaha oo ah Amiir Maxamed bin Salmaan toona waana talaabada muujinaysa inaanay boqortooyada Sacuudigu u jaxanjaxaynin qorshaha uu wato madaxweyne Biden iyo in aanu xilligan ahayn kii 70meeyadii ilaa 80meeyadii ee Mareykanku uu galwadeenka ka ahaa bariga dhexe madaxweyne Biden qasriga madaxtooyada magaalada Jidda markii uu gaaray madaxweynaha Mareykanku waxa halkaa ku qaabilay amiirka Amiir Maxamed bin Salmaan oo ah amiirka dhaxaltooyada boqortooyada Sacuudiga inta badanna amiirka magaalada Maka waxa uu magaalada Jidda ku qaabili jiray madax kala duwan oo dalalka islaamka ka socota laakiin madaxdaasi inta badan waxay ahaayeen kuwo safarkooda koobaad uu yahay inay gutaan xajka amaba cimrada horase uma dhicin madaxweyne dalka Mareykanka ay qaabilaan amiira hoose oo weliba aan kuwii caasimadda joogay ahayn waxaase calaamada ay u tahay hawsha weyn ee madaxweyne Biden u taalla gudaha Sacuudiga halkaasoo uusan ku keliyeysan doonin madaxda Sacuudiga laakiin ay iman doonaan maalinta berrito madax kala duwan oo ka kala socota wadamada Masar, Ciraaq, Bahrayn iyo wadamo kale iyadoo madaxweynayaasha dalalka iyo ra'iisul wasaareyaashoodu ay goobjoog ka noqon doonaan kulanka caamka ah ee madaxweynaha Mareykanka uu la yeelan doono madaxda gobolka waxaana la sheegay in 3 qorshe oo waaweyn oo madaxweynaha Mareykanka uu yimi Sacuudiga iyadoo ta ugu horeysa ay tahay dhanka shidaalka sidii kor ay ugu qaadi lahaayeen boqortooyada Sacuudigu wax soo saarkooda shidaalka si qiimaha shidaalku uu jabo maadaama qiimaha sare ee shidaalku uu dhibaato weyn u geystay dhaqaalihii dalka Mareykanka hoosna u dhigay sumcaddii madaxweynaha Joe Biden hore Sacuudigu waxay uga diideen in shidaalka kor loo qaado madaxdii kala duwaneyd ee uu Joe Biden u soo diray Sacuudiga sida madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron hogaamiyaha Jarmalka iyo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska madaxda oo guud ahaantood faramaran kala noqday magaalada Riyaad kadib markii boqortooyada Sacuudigu ay ku adkaysatay inaanay ka baxaynin qorshayaashii ay ku heshiiyeen wadamada shidaalka soo saaray ee ku midaysan ururka OPEC qorshaha labaad ee Joe Biden Sacuudiga u yimi isaguna yeedhay wadamada gobolku waa sidii loo sii wadi lahaa caadiyeynta xidhiidhka Israa'iil waxooda qabsina lala yeelan lahaa iyadoo Sacuudigu ay hore u diidanayeen heshiiska caadiyeynta ee Israa'iil shuruudna kaga dhigeen in marka hore la helo dowlad Falastiin laakiin subaxnimadii saaka 15kii bisha 2022 ka hor intii aanu Biden iman Sacuudiga boqortooyada Sacuudigu hay'adeeda dhanka duulimaadka u qaabilsan waxay ku dhawaaqday in boqortooyada Sacuudigu ay haatan kadib hawadeeda u fasaxday dhammaan diyaaradaha dalalka caalamka ee rayidka qorshaha oo ay markaas soo galayaan diyaaradaha Israa'iil ee rayidka dowladda Ciraaq oo iyana kulanka berri ka soo qaybgalaysa ayaa baarlamaankeedu waxay hore u ansixiyeen in aan marnaba la aqbali doonin in la caadiyeeyo heshiiska Israa'iil tan iyo inta xaaladda gobolka bariga dhexe ay caynkan tahay qorshaha saddexaad ee madaxweyne Biden u socdo waxaa lagu tilmaamay inay tahay sidii wadamada Carabtu ay u sameyn lahaayeen gaashaanbuurta Carabta ee NATO taasoo ay iskaashi buuxa la yeelanayaan Israa'iil lagagana hortagi doono jamhuuriyadda Iiraan waana qorshayaasha ay ku sii dhawaaqeen ama sii faalleeyeen inta badan dadka ka faallooda siyaasadda caalamiga ee gobolka bariga dhexe laakiin kulamada berrito ee Biden la yeelan doono madaxda dalalka Carabta ee kulanka Jidda tegi doonta ayaa waxa aynu kaga bogan doonaa oo ku ogaan doonaa natiijada kama dambaysta ee socdaalkiisa waxaana ku adag boqortooyada Sacuudigu inay aqbasho qorshaha dhanka shidaalka ee ay u socdo Joe Biden maadaama ay hore uga diideen hogaamiyaashii wadamada waaweyn ee reer Yurub
ee uu joe biden laftiisu soo diray.